الرحمن الرحيم maanta kulankeena halkan aan ku qabanay anigoo ah xildhibaan federaalka Jubbaland ka soo jeeda iyo xildhibaanadan kale uu ka mid yahay gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland iyo dad kale oo ay qosayso danaha deegaanmadan Jubbaland iyo Koonfur Galbeed maadaama ay yihiin deegaano dadkoodu wada dhashay dantoodu isku xiran tahay shirkan sida asxaabtii hore iga horeysay ay u sheegeen ujeedada shirkani waxa weeye dawladda federaalka ah oo u dhaqmaysa hadda qaab maleeshiyaad hogaamiye kooxeedyadii qaabkay Soomaaliya ku soo haysteen oo kala u dhaqmaysa ummadii Soomaaliyeed hadda doonaysa inay u horseedo in hadda qabiil isku dilaan hab aanan dawliga ahayn xishoodka ka maran yahay ay u dhaqmayso oo ay kamid tahay wax walba in hadda social media boqolkiiba 200 budgetkii dalka loogu talagalay ay gelinayso dadkii ay maran habaabinayso ayadii ay maraayad isku fiirinayso ayada is daawato been isku sheegto dhibaatooyinka ay wadana meel walba hadda ay saameeyeen oo hadda ay marayso guddi hoosaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya in dawladda xukuumadda federaalka si toos ah ay ajanda uga dhigato in guddi ku shaqeeyo xiroosaad institution madax banaan ee xukuumadda golihii fulinta ay u aragto ay dadkii kala laalushto dadkii isqabadsiiso maamul goboleedyada laga soo bilaabay Galmudug laba xir ay u owday qaar ay meel ku xareysay madaxweyne diyaarad lagu keenay abuurtay xukuumadda sideedaba madaxweynaha annaga soo dooranay cod aan ku soo dooranay madaxweynaha waxa la tartamahay inta musharax oo Soomaaliya waa la ogaa cidna nama qasbin la isma joojjoobin rabitaankeena ku soo dooranay rabitaanka ummadda Soomaaliyeed aan ku soo dooranay hadda ayagii waxa muuqata rabitaankii inay u bedeleen ismaqoonin oo ay doonayaan waxaan rabaad qaadanaysa fad ama fadin waa lagu fadsiin fad ama fadin waa lagu fadsiinay Soomaaliya waa ku soo daashay 30 sano dhaafsan tahay waa la ismarsiin waay maanta dawladnimada meel fiican baa la soo gaarsiiyay maamul goboleedyadan dad baa ka soo shaqeeyay dhiiga loo soo huray dulqaada la soo marsiiyay wixii la soo dhisay institution ah hadda in dib loo burburiyo saacada lagu burburinayo oo hadda Galmudug la soo kala gooyay Koonfur Galbeed hadda cagta la marin rabo Jubbaland loo soo hanjabayo ma garanayna institutionkii la isku soo doortay halka la raba in la geeyo madaxda qaranka waxa aad u haboonaan lahayd in ay muujiyaan in lagu soo doortay kalsoonida dadka